damaashaadka iyo mashxaradaasi waxay ahayd 8 February 2017 markii si cad loo shaaciyay in madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu ku guuleystay doorashada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan rabaa inaan halkaa uga hambalyeeyo walaalkay Maxamed Farmaajo oo noqonaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. haddaba hal sano kadib waa sidee aragtida dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ah kuwii sida ballaaran ugu dabaaldegay ugu mashxaraday guusha uu gaaray madaxweynaha iminka talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hal sano dalka Soomaaliya xilligan soo maamulayay welina ay sanado kale u harsan yihiin. waxaan rabaa inaan halkaan uga hadlo dhowr qodob oo ah dawladda haatan jirta oo masharaha u hayo madaxweyne mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaa hadda la marayaa 8 February ama 8 February oo ku beegan xilligii uu masharaha dalka la wareegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha aad iyo aad waxaan ugu bogaadinaynaa shaqada culus oo hayo haddaan nahay shacabka ku nool caasimadda gaar ahaan dhalinyarada waxaa jira waxyaalo badan oo madaxweynuhu qabtay muddada haatan uu masharaha dalka isaga iyo xukuumaddiisa iyo ma garanaysaa tiimka la shaqaynayaba waxaa jira ay qabteen waxaa jira waxyaalo badan oo u dhiman ilaahay u sakhiro oo ilaahay u fududeeyo marka de wallahi aad baan u bogaadinaynaa wax ma garanaysaa kollaba shaqadu waa socotaa dawladda wax way qabatay laakiin wax aad u badan ayaa weli dhiman madaxweyne Farmaajo wuxuu noo sheegay maalintii ololihiisii in oo wadda dambe aan la xireynin hadda laakiin wadda xiristi way sii ziyaaday qadyaana taagana oo waxa weeyaan waddadaas wadnaha wixii magaalada dhinaca koonfureedka soo xigo mar walba waa iska xirayeen dhibaato weynana kala kulanaa waxaa la dhihi karaa horta wax fara badan bay qabatay yaa la dhihi karaa marka koowaad waxyaalaha qabatayna waxaa ka mid ah kow security amnigi oo dib ugu soo noqdo dalka sidii ay bulshada ugu bahnayd way qabatay waxay qabato kala la dhihi karaa xaggi dhaqaalihii oo saro u kacay oo dhaqaalihii xaggeedii ayadana qayb weyn bay ka qabatay xaggi waxa la dhihi karaa oo kale education waxbarashadii ay daftigeedina waxbay ka qabatay waxa kale la dhihi karaa inter society dhaxalka bulshada ayadana wax weyn bay ka qabataa la dhihi karaa marka waxa qabadkii qabatay aad hadda sanadka sano ay joogto waxa la dhihi karaa wax weyn ba ay qabataa la dhihi karaa la dhihi karo waxa ugu wanaagsan ay ka qabatay musuqmaasuqii iyo lunsashadii hantida ayay ka hortagtay xuquuqdii shaqaalaha iyo mataqaana xafiismanka dawladda ayaa si toos ah u baxa runtii taas kaligeed ayaa waxa hadii lagu qiimeeyo tilaabo aad iyo aad u weyn kuwa kalena waa dhinaca amniga iyo dhisidda ciidamada waa waxyaabo yani lagu guda jiro oo isleenahay ayadana waqtiyada soo socda guulo ayay ka gaari doontaa anigu haddaan ka hadlo waxa xaqiiqda dawladdu wax badan bay qabatay ilaahay baa horta mahad iskale ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala baa u mahad celinaa ka sokow madaxda dalku wax badan bay qabteen dalkaanu meel xaalkiisa ilaahay ogyahay ka soo noqon marka xaqiiqdeedii sheego abar dugaag baa ku diriisay way carabtaas imaaraadka nimanka imaaraadka leeyahay u horeeyeen isku soo duuduubay anigu waxaan dhihi karaa afartii Abdullaahi Yuusuf afartii Shariifka iyo afartii Xasanba halkaas ana ka macnaada oo nooga jeedo wax qabadka dawladdu dalku maanta meel lagu xisaabtami karo oo laga sii dhaqaajin karo jooga maanta waxaa lagu xusuustay dawladda dhalatay 8 February inay ahayd dawladdii ugu shacbiyadda badneed xilliga madaxweynaha doorashada uu ku guuleystay